warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin ka soo diyaarisay hanaanka soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo diyaargarowga shacabka caasimadda ku dhaqan ay u diyaargaroobeen sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo laabtay waddanka Mareykanka. dareenka dadweynaha ayaa ahaa mid aan la qiyaasi karin waxaana waa sida tan Soomaaliland waydiida xamar Soomaaliland calankan Soomaaliland calaamadihiisa guud cidiyaan ogaynay maqal cadayn baan ku hayaa calankana shahaadataynka cayaar looguma dhigine cilmigu ku salaysan yahay cidii micabiyadkadiisa calaa cashati makaa anduuftiina dib u liqo al iyo nabad labada dhinac codsada kaa jeceshiin islaam culusidaanu nahay adduunyada waa ka caan dhammaan ciidayada allaa lagu caabudaa dardaranaha cabanayow haddaad weli ciin qabtaan calooshii midnibadii aa cunteen calooshii may jirta maanta waa maalin qaaliya 30 sanaanu gooni u taagnay waxaan ogahay baana soo maray dadka waan ugu weynahay dadkii waxaan ahay la eryanayay ee kolle la xilay kolle la dilayay ee dadkoodii madhay qiira ay haysa maanta aad baan u faraxsanahay allahayow ha nagu celin allahayow ha nagu celin allahayow ha nagu celin allahayow ha nagu celin waxaan soo dhaweynaa madaxweynihii qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mujaahidka itiraafkii busla waxa ku noo soo qaadaya Soomaaliland lagu doonayno taayadaanu taaganahay taayadaanu ku soo baxaynaa taayadaasaan ku dhimanaynaa ku noolaanaa hal noolaad Soomaaliland lixdii subaxnimo ayaanu u soo baxnay lixda galabnimo haday gaadhana ma dhaqaaqayno waxaanu leenahay guul iyo garabaanu la garab taaganahay madaxweynaha iyaga aadna aanu ugu faraxsanahay madaxweynaha iyaga wiisha noo soo hooyay aad baanu maanta u faraxsanahay ilaahayna sidaa noo guuleeyo dhul baanu ka soo kacnay waxaan ka soo kacday shaqadayadii lama soobi karo qaar lugeeyay qaar gaari soo raacay oo soo lugeynay alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweynaha ilaahay nabad naga kicay nabad noogu soo celiyay guusha uu noogu soo hooyay nimaan garanaynina waanu garanay ilaahay aan garasiyo intaan garanay ilaahay garasiyo alxamdulillah rabbil caalamiin cadowga waxa jabo madaxweynaha iyagii baanu ku soo dhaweynanaa oo guul noo sida madana Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay dareenkayagu maanta aad buu kacsan yahay cadceedaanu taaganay qorraxdaanu taaganay waanu adkaysanaynaa waxaasi cadceeda haddaanu ilaa 6 galabnimo taagnaano aad buu dareenkayagu kacsay nama dhibayso waxaanu leenahay cadowga Soomaaliland ha burburo ha baabaanu leenahay ku dal jooga ku guba jooga dhammaan waxaanu leenahay ummadda Soomaaliland kor ha u qacdaanu leenahay cadceeda u taaganayo soo dhaweynay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xildiid waxaan leenahay madaxweyne soo dhawo itiraafka sidaa wax badan ma soo qabatay dadka Soomaaliland ku mashquulsan waxa leeyahay Soomaaliland ku mashquulna way tagtay waxaan leenahay Soomaaliland guuliyo gobonimo ayaan leenahay madaxweynaha waxaan leenahay hambaliyo shaqo wanaagsan ayaad qabatay waa wixii lagu doortay dhammaan dadweynaha waxa ka muuqata farxad aad u fara badan waxay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta madaxweynahooga iyagoo heegan ugu taagan cadceedaasi ku sugaya hadii ilaahay mar buxuk maayo waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu isagoo caafimaad qaba soo gaadhay isagii wafdigiisa ayaan rajaynaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u salaamayaa gaaraan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu inoo soo wariyay guul taariikhi ah oo ku aastaysan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay guul Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta halka waxaanu ka muujinaynaa dareenka iyaga aadna aanu ugu faraxsanahay madaxweynaha iyaga wiisha noo soo hooyay aad baanu maanta u faraxsanahay ilaahayna sidaa noo guuleeyo xadarna sidaa nooga reebo Soomaaliland socotaye hanagu sidii roo hanagu daba haraan anagu hamar doori mayno